gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta si balaaran lagu soo dhaweeyay degmada Kaxda oo markii ugu horeysay ee uu booqdo Seena Maxamed Aadan ayaa warkan inoo faafahinaysa. xalfadani ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaana lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaa ka soo qayb galay shacabka kala duwan ee ku sugan degmada Kaxda mas'uuliyiin ka socotay labada golo ee dawladda waxaa halkaasi ka hadlay wasiiru dawlaha wasaaradda dekedaha ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Dheere waxa uuna ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay soo dhaweynta loo sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. qofka kaalin ay ka soo qaatay degmada horumarkeeda ayadoo runtii aan ku amaanayo bulshada si gaar ah isku qaatay oo wax badan oo kamid ah xoogaa u ahay in ayagu isku qabteen laakiin kama marneen gacanta dowladnimo ay ka maarmay mar walba inay ka joogto maamuladii ka horeeyay waxaan hadda rajaynayaa insha Allah taala baahidooda ay sheegteen oo ugu muhiimsan wadooyinka iyo isbitaalada iyo iskuulada inaynu adigana wax ka qaban doonto adoo la kaashan doona xukuumadda nabadii nolol kana rajaynaya insha Allah taala rajo badan aan ka qabo inadiiso oo golaha wasiirada aan ku wada jirnay maalmo ka hor nooga soo tagay isagoo runtii ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Riisow ayaa u mahadceliyay dadka degan degmada Kaxda sida quruxda badan ay u soo qaban qaabiyeen xalfada lagu soo dhaweynayo waxa uuna ka hadlay qodobo kala duwan inay suuqiyo iyo maalgashi ku sameeyaan degmada si degmadu ay isugu tashato ay u noqoto degmo la tartanta degmooyinka kale mar kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada oo runtii casuumaadda ugu horeysayna noo fidiyay annagana aan noqonay kuwii ajiiba mar kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina dheer aad nala joogteen waxaan idin ballan qaadaynaa inaan wax walbo oo aan qaban karno aan qabanno idinkana waxaan idinka rabnaa inaad noo soo ducaysaan garab gashaan nala shaqaysaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Somali Cable magaalada Muqdisho.